halkaad nagala socotaan waa Garasho Journal. Ku soo dhawaada barnaamijka Bollywoodka. Waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda atriishada caanka ahayd ee Karishma Kapoor. Fadlan subscribe channelkan saad ula socoto mar walba waxyaabo adig ku xiiso gelin doona. Aan guda galna markaan barnaamijkeena taariikhda Karishma Kapoor. waa curada ay dhaleen jilayaashii Ranbir Kapoor iyo Babita. Karishma Kapoor waxay dhalatay 25 bishii 6 1974. hadda da'deedu waa 44 jir. waa atriisho uu awoow u yahay Raj Kapoor. wuxuu ahaa film sameeyay ugu fiicnaa sanadihii 1940. waa walaasha ka weyn atriishada caanka ah ee Kareena Kapoor, waxaana weyn Karishma Kapoor. Karishma waxay jilinka ku soo gashay inay ahayd shakhsi firfircoon oo nadiif ah. 1990kii waxay dhigtay wacdaro weyn Bollywoodka. Karishma Kapoor waxay samaysay in ka badan 50 filim, waxayna u badan yihiin filmaanta ay samaysay super hit. Karishma Kapoor markii ay soo gashay Bollywoodka waxay aad uga yaabisay dadka filmada daawada. midabkeeda qurxoona, bishimaheeda casaa iyo sunniyaheeda loo maleynay qaasaroobaadka iyo jilinkii cajaa'ibka ahaa. filmaanta ugu caansana ay dishay aktaradan Karishma Kapoor waxay noqdeen super hit. calaashan filmada guuleysta ayaa la dhahaa super hit. lacagta la gelay filimka in ka badan waa inuu soo saaro faa'iido ah iyo mid aan daawashadiisa laga daalin. aan soo qaadano qaybo ka mid ah filmaanta ay dishay oo super hit ka noqdeen. Dil To Pagal Hai wuxuu noqday filimkan super hit. hogaamiyaasha waxaa ka mid ahaa oo horkacayay oo aktarka ah SRK u taqaanin Shah Rukh Khan iyo Karishma Kapoor ayaa atriisha ka ah. filimka labaad waa Raja Hindustani, asna wuxuu noqday super hit. hogaamiyaasha waxay ahaayeen Aamir Khan iyo Karishma Kapoor. filmaan badan way jiraan, intaas ayaan soo qaadanay. 50 film ay samaysay Karishma Kapoor waxay u badan yihiin super hit. inta badan aflaamta guuleysteen waxay la keentay Govinda iyo Ajay Dev. Karishma Kapoor waxay guursatay ganacsadaha da'da yar ee Sanjay, waxayna aqal galeen sanadka markuu ahaa 2003. waxaan u joogto 2 caruur, wiil iyo gabar. atriishadan markii ay guursatay kadib way ka baxday fanka ama filin jirista. sanadkii 2014 ayaa muran xoog leh kala soo dhexgalay lamaanayaashan, wayna kala tageen. waxayna maxkamadda go'aamisay in si xushmad leh u kala tagaan. maxkamaddu waxay go'aamisay carruurta inay la noolaadaan ay la joogaan hooyadooda ee Karishma Kapoor iyo aabahood inuu soo booqan karo waqti kasta u baahdo ilmihiisa. Karishma Kapoor hadda waxay barnaamijyo ka qabataa telefishinada dalkeeda hooyo ee Hindiya. waxaa halkaas noogu dhan taariikhda atriishada caanka ahayd ee Karishma Kapoor. Fadlan subscribe channelkan saad mar walba ula socoto waxyaabo adig ku xiiso geliyo. aragtidaada hoos noogu reeb, like share muuqaalkan, share na dheh adoo mahadsan. waxaana kala socoteen Garasho Journal saad mar walba ula socoto. fadlan subscribe ha iloobin. fadlan subscribe sar channelkan. yaa jecesha inaan ku soo qaadno barnaamijka xiga ee Bollywoodka. aktarka ama atriishada jeclaan lahayd fadlan hoos noogu reeb.